guddiga difaaca Puntland ayaa war ka soo saaray xiisada ka taagan deegaanka Tuqarraq ee gobolka Sool halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland faafahinta warkan waxa magaalada Garowe nooga soo diray wariyahayaga Cabdirashiid Bashiir Maxamuud shirkan jaraa'id ee guddiga difaaca Puntland ay ku qabteen magaalada Garowe ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda deegaanka Tuqarraq ee gobolka Sool oo ay isku horfadhiyaan ciidanka Puntland iyo kuwa Somaliland wasiirka wasaaradda amniga Puntland ahna gudoomiyaha guddiga difaaca Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dawlad ayaa madasha ka akhriyay awaamiir ka kooban 12 qodob oo ay soo saareen guddiga difaaca Puntland kuwaas oo intooda badan salka ku haya xaaladda deegaanka Tuqarraq ee gobolka Sool iyo digniino kala duwan oo loo jeediyay shacabka Puntland waxa lagu wargelinayaa shacabka reer Puntland in dawladda Puntland ay ka go'an tahay xoreynta gobolka Sool aragti kasta oo ka soo horjeeda Puntland midnimadeeda wada jirkeeda iyo xoreynteeda waa dambi qaran cidii aaminsanna waxa loo aqoonsanayaa u gargaar cadow sida daraadeed waxa lagu qaadayaa xeerka ciqaabta qodobka labaad hub kasta oo ku sifoobay ama loo arko inuu lid ku yahay xoreynta dhulka maqan wuxuu la mid noqonayaa hubka cadowga qodobka afraad taliye ciidan iyo mas'uul kasta oo xil ka haya maamulka Hargeysa oo ka soo baxa kana soo wareega muddada hawlgalku socoto wuxuu mutaysanayaa abaalmarin qodobka shanaad qof kasta oo ka soo jeeda deegaamada Puntland oo u shaqeeya maamulka Hargeysa kana tanaasuli waaya hagardaamada iyo waxyeelaynta shacabka reer Puntland wuxuu mudanayaa xeerka ciqaabta Puntland qodobka lixaad qof kasta oo cadowga Puntland qariya ama gabaad u noqda ama gabaad siiya isagoo ujeedadiisu tahay in lagu waxyeeleeyo shacabka iyo dawladda Puntland qofkaas wuxuu la dambi yahay cadowga uu qariyay qodobka toddobaad qof kasta oo gacan siiya qof u shaqeeya maamulka Hargeysa oo ay ku cadaato khiyaamo jaajusnimo ama siin xog waa dil aan lahayn mag qodobka sideedaad ma laha wax mag ah ama godob taliyaha askariga ama mas'uulka ka soo jeeda gobolada Puntland oo lagu dilo dagaalka isagoo u diriraya maamulka Hargeysa ee ah cadowga inaga soo horjeeda qodobka sagaalaad hanti kasta oo uu leeyahay qof reer Puntland oo loogu shaqeynayo maamulka Hargeysa waxa la wareegaya dawladda Puntland qodobka tobnaad maxkamadda ciidamada waxa ay waajibkeeda ka gudanaysaa cid kasta oo faldambiyeed ka geysata goobta dagaalka sida dhac kufsi ama diido dil loo geysto dad rayida ama cid kale oo ka tirsan ciidamada iyo wixii la mid ah dawladda Puntland waxay cadeynaysaa in aysan cadow ku ahayn shacabka ku nool gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya nabadgelyadooda iyo jiritaankooda isla markaana waxa ay soo dhaweynaysaa cid kasta oo doonaysa xoojinta wadajirka ummadda Soomaaliyeed awaamiirta ka soo baxday guddiga difaaca Puntland ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli in ka badan 4 bilood ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland isku horfadhiyaan deegaanka Tuqarraq ee gobolka Sool iyadoo marka ka dambaysa ay sii kordhayso xiisada u dhaxaysa labada dhinac Cabdirashiid Bashiir Somali Cable TV Garowe